marka hore waxa mahad leh allihii inoo suura geliyay inaynu isugu nimaadno xafladan quruxda badan mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhalinyarta waqtigooga iyo juhdigooga gelisay inay noo soo qaban qaabiyaan xafladan quruxda badan xafladan oo ah xaflad aynu ugu wanqalayno ururka Subeer Awal ee Jilaali ee dalkan UK haddaba waxay sidaynu ognahay inagoo dad islaam aynu nahay waxaynu ku furan doonaa aayadaha qur-aanka kariimka waxaana inoo akhrin doona walaalkeen Cabdiqani Axmed Yare بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم إذا قرآنك إلهي نوافقه إما كواحد نقول سود ويننا سين حفلة نفرنا وأفينك أورك تشيلالي غيبتي سي UK وفيصل عبد الرحمن waxaan leeyahay ku soo dhaw Faysal bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh ilaahay oo noo suurtageliyay inaan isku nimaadno xafladan balaaran lagu asaasayo caawa ururka Jidaali ee UK marka labaad waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta inaga timi magaalooyinka London iyo Cardiff iyo Sheffield oo u badan odayaal iyo waxgaradkii reer Subeer Awal inta markay maado saxaafadana aad baan u salaamayaa caawade waad arkayseen madaxdii ururka Jidaali ee dalka ku aasaasay siday u hadlayeen waxyaalihii ku kalifay in ururka Jidaali loo aasaasay runtii waxa weeyaan sidii ururka loo aasaasay way naga warrameen madaxdii oo dhowr ahaa laakiinse anigu waxaan caawa doonayaa in halkan ka diro laba message mid waxaan u dirayaa dhalinyarta reer Soomaaliland meel kasta ay joogto talabaadna waxaan u dirayaa madax meel ka sareeya oo la salaaxa ma jirto waxaan u dirayaa mudane Axmed Maxamuud Siilaayo inta kadibna waxaan ka hadli doonaa sida la isugu xirayo dhalinyarta Subeer Awal ee jooga qurbaha haddaan u soo noqdo message-deeda ta koowaad dhalinyarta reer Soomaaliland especially waliba kuwa wax bartay waxa loo baahan yahay qofku marka uu wax barto ee uu aqoon barto muhiimadiisu waxa weeyaan aqoonta uu bartay inuu naftiisana ugu faa'iideeyo uguna faa'iideeyo dalkiisa aqoontu qiimo ma leh haddii uu qofku dalkiisa aanu wax u qaban oo uu eegto personal interest maxaa adiga ku dana haddii la wada eegto dalkanu maqnaansa horumar ma yeelanayo haddaan u soo noqdo 1981 haddaan khaldanayn markii la abuuray ururka SNM waxa abuuray dhalinyar inakoo kala ah oo ay u horeeyaan mujaahid maxamed xaashi mujaahid xasan ciise jaamac mujaahid ibraahim dagaweyne mujaahid xasan goore waxay ka dhiidhiyeen maxamed xaashi wuxuu ahaa engineer buu ahaa person interestkiisa mu eegan wuxuu eegtay inuu dalka uu badbaadiyo oo rejiimkii maxamed siyaad bare uu ka kaxeeyo dalka si aan unugu ugu noolaano freedom oo aan ugu noolaano dalkeena waa ceeb bay nagu tahay shame inkoo oo dhalinyartii shalay loo dagaalamayay in iyagoo oo patient maanta maxamed xaashi intay madax samaystaan ay inakaynoo hadlaan oo yidhaahdaan dhalinyartii tahriibkiibaa batay dhalinyartii shaqo la-aan baa haysa dhalinyartii xashaa jirta markaad eegtid dowladda 2% baa la helaa shaqooyinka 2% la helo waxa lagu bixiyaa xasho la iskuma siiyo maqanaansa wax fair ma jiro dalkeeni marka waxaan oran lahaa dhalinyartu inay boardka iska jaftaa waa in dalka waxa la eegaa dalkasta waxa la eegaa uu hormarayo si dhalinyarteeda uu hormarayso ay u fakarayso baa runtii la eegaa marka dhalinyarta Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa especially inta wax baratay in ay ka dhidhiyaan xumaanta xashada qabyaalada soo badanaysa ee maanta dalka ku badanaysa in waxa ay aad ugu dhidhiyaan baan ugu ayaan isku ogaanaa waxaan isku ogaanaa haddaan ururka Jiidaalinahay inaan ka shaqeyno dadka qaranka maxaa u dan ah dalkeena inaan taa ka hadalo ay muhiimad u tahay mudane Axmed Siilaayo
mudane madaxweyne maalintii dalka lagu dhiibay ee dahriya la ku dhiibay runtii dalku integrity buu lahaa isku xidhnaasho dadku way is ogolaayeen laakiinse maanta dadkii qofka sabab meel buu ayuu joogaa oo halkaa uu leeyahay reerkaygiba caynkana marka waxa weeyaan taasu waxay keenaysaa in dowladdii ay dadkii ay kalsoonidii kala noqdeen markaa mudane axmed silaayo waxaa odhanayaa 95% dhalinyarta reer somaliland waa hopeless waa in ku dhimatay saxaraha libiya in joogta oo ku go-doon ah greega iyo in imaka xidhan markaa waxaan odhan lahaa dhalinyarta halkaasi maanta rajo halkaasi dowladdii ka taagan tahay marka axmed silaayo waxaa odhan lahaa dowladdii laguu dhiibay ee dalku kuu dhiibay ee kuu dhiibay daahirayaale kaahin in maanta ay qacantaada ku burburto mudane madaxweyne waa laga fiican yahay marka waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha in doorasho xol iyo xalaal ah uu dalka ka dhaco si ummadda reer somaliland u kala badbaado runtii ururka jiidaali maxaa keenay maxaa loo aasaasay runtii aad baa looga hadlay dhalinyartu aad bay inagu sharaxday waxa weeyaan soomaalidu waxay tiraahdaa maamaha ingiriiska waxay tiraahdaa charity begins at home qofku marka ugu horeysa guriga marka la dhisayo waxaa laga bilaabaa seeska kadib gidaarada la taagaa markaas haruufka la saaraa waxa weeyaan in dhalinyarta subeer awal ay isku timaado ayahooga ka tashato iyagu ay isku xidhnaadaan si ay dhalinyarta guud ee reer somaliland ugu xidhnaadaan ba sababta koowaad ee ururka jiidaali loo sameeyey ay tahay waxba hadalka badimaayo maadaama ay marti badan joogto martidaan hadalka uga baxaya assalaamu calaykum waxaan in yar ku dari lahaa ururkan jiidaali caawa wuxuu ku soo beegmay habeen aada u qiimo badan waayo waa 10kii muxaram waa habeenkii nabiyullaahi muusa ilaahay ku guuleeyay halgankii uu diinta islaamka soo galay laguna halaagay fircoon waxaan filayaa sansaanta ka muuqata ururkan jiidaali inay noqonayso mid ku guuleysan doono biidnillaah wixii ka hor yimaadaana ay mari doonaan halkaa uu fircoon maray intaasi kaftan ay ahaato hadda waxaan kusoo dhaweyn doonaa afhayeenka guud ee UK ee beesha subeer awal ee ururkan jiidaali waa ibraahim nuux xuseen bal kusoo dhawow baan leeyahay الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركو هروحان نتكو سلام يا سلامة إسلامك وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت هذا بديت ولا ليال حفلتنا وحن نسكوون نمت وانقشع ururka subeer awal ee jiidali waa urur barakaysan runtii oo aad markaan dhageystay wax badan xoogaal umaan ahayn markii hore laakiin markaan dhageystay hadaladii gudidii waxaa muuqataa inay dadaal badan sameeyeen inay wax badan qabteen in ay doonayaan in ay hawshii ay qaban kari waayeen iyo wixii ay gabeen xisbiyada mucaaradku iyo xisbiyada kalaba iyo ururada kale ee ka jira dalka odayaashu ay gabeen in ay iyagu oo dhalinyaro ah inay isku taxallujiyaan inay wax ka qabtaan oo dalka wax muuqata inay la xijcelo weyn ka qabaan inay doonayaan inay badbaadiyaan in ay doonayaan inay mustaqbalkooda aanu ka madoobaan oo aanay dhicintii hore ee dhacday waqtigii siyaad barre ee dhalinyartii ay ka qaxeen ee dalku baaba'ay ee burburkiiyo baaba uu dhacay waxaa halkaa ka muuqata inay doonayaan inay dhalinyartu mustaqbal waddanka ku yeeshaan nasiib darase odayaashu amba hogaamiyaashu mid siyaasadeed mid urur mid dhaqan waxaad moodaa in aan xilba ka saarnayn oo aanay u muuqan dhibta taalla iyo waxa soo socda haddaan taa ku gudbo waxaan jecelahay marka hore inaanu urur ahaan subeer awal haddaanu nahay guddidii UK ururkaasi waanu baaragnay waananu taageersannahay waxaanu leenahay halkaa ka wada waxaan jecelahay inaan dhowr qodob ka hadlo
waxaad moodaa dad baa ka sasay oo markay subeer awal maqleen isweydiiyo yidhi war subeer kan la soo saaray waa maxay iyo qabyaalada dib loogu noqday haddaynu dib ugu noqono dhismaheena iyo structureka iyo qaabka siyaasadeed ee dalku u dhisan yahay haddaynu dib ugu noqono xisbiyadu siday u dhisan yihiin haddaynu dib ugu noqono saami qaybsiga xukuumadda haddaynu dib ugu noqono guurtiisu siday u dhisan tahay haddaynu dib ugu noqono waktigii boorama la joogay ee somaliland halkaa laga soo aasaasay wax kasta oo aynu ku dhisannahay waxa ku dhisanay qabiilad bay ku dhisanay marka waxa weeye waxaad moodaa dowladnimadeenna marka xisbi qabsado waa iska magac laakiin marka la qaybinayo xukuumadda ilaa qofka shaqaalaha hoose ilaa wasiirka ilaa agaasimeyaasha noocu doonaba ha noqde ilaa ka project la siinayo amba la siinayo qandaraas la siinayo waxaa lagu qaybiyaa qabyaalad qofka looma eego reer hebel baa la siiyo reer hebel intaasay doonayaan marka ay xukuumaddu timaado odayaashii kaaba qabiiladaha amba odayaashii dhaqmeedka ayaa taagan oo reer hebel haddaanu nahay maanta waxaan rabnaa in intaasoo wasiirna la siiyo in agaasimahana la siiyo maxaana la siinaya ka la bedelo halkiisi mid kale lagu keenaya marka waxa weeye horta taayaan laga sasin marka laga hadlayo subeer awal soo nooleyntiisu macnaheedu waxa weeye dalka in lagu badbaadiyo mar haddaynaan ka maarmeen qabyaaladii mar haddaynaan jilibnimadii ka maarmeen mar haddaynu ku saami qaybsanayno mar haddii guurtidii ay ku dhisan tahay mar haddii golihii wakiiladu uu ku dhisan yahay waxa weeye in aynu subeer awal dib loogu noqdo oo subeer awal oo positive ah oo dhinaca wanaagsan wax ka qabanaya oo waxtar leh oo dalka dhisaya oo wax qabanaya in la sameeyo weeye waxaad moodaa baahiyaha 4 qodob ayaa keenay baahida waxa weeye haddaad dib ugu noqoto doorashadii degaankii iyadoo oo somaliland ay degan tahay oo ay qaab yaroo xisbiyadu ay u dhisan yihiin ay u shaqaynayaan 3 xisbi oo dalku ka soo baxay qabyaaladii oo xisbi qofku ku abtirsanayo oo xisbi wax ku qabanayo ayaa doorashadii degaanka la soo xukuumaddu dib ugu celisay somaliland qabyaalad bay ku qaybisay halkaynu ka soo bilownay 20 sano ka hor ayaynu dib ugu noqonay dalkii dabeetana wuxuu gaadhay heer lagu kala baxbaxo oo jirib hoose 2012 anoo hargeysa joogo waan nahay anoo kulmiye og anoo ka fikira kulmiye iyo ucudiyo udub ka fikira ayaa waxaan maqlayaa reer hebel oo jilibadii hoose ee Saacad Muuse ayaa la sii kala qaadaya oo leeyahay hebel baa halkaas socdo xisbigiisu socdaay waxa weeye hadda reer hebel tihiin caynkan iyo caynkan marka jidale waxa ka taraysaa halkaynu xaggii hoose tagi lahayd inay dusha sare ka habato oo xagga sare wax ka qabato waayo in lagu eeg xagga sare ee subeer awalnimada lagu eekaado ayaa ka haboon in jilibadii hoose hoos loo tago taasi waxay dhiirigelisay maanta xukuumaddu waxyaalo badan bay dhiirigelisay siday sheegeen dhalinyaradu suuqii hargeysa in maanta qabyaalad iyadoo oon aad looga sheekaysan jirin looga sheekaysto marka waxay jiidalay ka anfacaysaa amba subeer awalnimadu ka anfacaysaa in dusha sare ee subeer lagu eekaado oo laga sii socdo oo laga sii gudbo ilaa heerka qaranka Somaliland la noqdo waxa kale oo ay ka hadleen dhalinyaradu oo ay sheegeen colaadaha ka dhex abuurmay deegaanada dadka dhex degan amba qabaa'ilka Somaliland ee dadka magaalada Hargeysa wada degan amba Burco wada degan taasi been maaha wax dadka ka yimid waa wax ay xukuumaddu doonayso dadka inay ku kala qaybiso oo ay xukunkeeda ku sii wadato haddaad taariikhda dib u raacdana waxa weeye nimanka hogaamiyaasha ah amba siyaasadda u qaabilsan ma yaqaanaan hab kale oo dalka lagu maamulo waxaan ahayn qaybi oo xukun oo reer intuu reer dhex dhigo reer hebel baa caynkana dabadeetna markaasuu kolba mid soo jiida kolle mid buu sii daayaa kolle mid buu soo dhaweeyaa waxa kaloo aad muuqataa taabagelin la-aanta xisbiyada qaranka khaasatan xisbiyada mucaaridka haddaynu soo qaadano waxa weeye hawshoodii bay gabeen waayo maanta jiidali may kacdeen dhalinyarada subeer war may kaceen haddii xisbiyada mucaaradku ay hawshoodii qabanayaan haddii golaha wakiiladu hawshiisii qabanayo haddii golaha guurtidu uu hawshiisii qabanayo ma ay dhacdeen waa wax maanta yimid oo ay way gabeen hawshoodii haddaynu ka hadallo waxyaalaha kale ee ma garanaysaa maxay ahayd dadweynaha haddaynu ka hadallo
waxyaalaha kale ee baahida keenaya waxa weeye dhowrkaa qodob inu soo sheegnay ayaa baahiyaha maanta taagan ee keenay in ay subeer awal arrintii soo baxdo haddaba subeer awal markaynu ka hadlayno faa'iidada subeer awal keenaya runtii haddaanu nahay guddidii UK amba subeer awalka guduhu guddi kasta oo ay yihiin hadday jiidali yihiin runtii tallaabada ay ku dhaqaaqeen maanta waa tallaabo ay subeer awal oo guud ahaan oo dhani ay doonayaan in ay dadka walaalahooda ee ay degaamada la degaan in ee colaada lagu kala dhex gelinayo xukuumaddu ay doonayso inay ku kala kaxayso in ay ku soo dhaweeyaan oo turxaan bixin ku sameeyaan oo xiriirkooda wanaajiyaan si dalka Somaliland uu u jiro oo uu nabad galo taasi waa qodobka ugu muhiimsan faa'iidada kale ee ay leedahay subeer awalnimadu ee la doonayo in la soo saaro waxa weeye waa dabar waa sida ay ka sheekeeyeen ay yiraahdeen xukuumaddu waxyaalo badan oo ku dhaqi lahayd ayaa ay ka joogsatay markii ay aragtay xaaladdu halkay marayso iyo si dadku wacyigoodu ay u soo jeedaan wacyigoodu u soo jeedo ay wax u arkayaan ee dadkii la kala qaybinayay la isku dirayay la iska soo horjeedinayay waxa weeye markay dadku ka kacaan qaladaadka xukuumaddu samayso dabar bay noqonaysaa mar haddaan dabar jirin golo wakiileed mar haddaan dabar jirin golo guurti oo dabar ah waayo dhaqan siyaasadda Somaliland iyo qaabka Somaliland ee dawladnimo iyo xukuumadnimo wuxuu ku dhisan yahay dawlad wuxuu ku dhisan yahay saddex dabar mid waxa weeye waa ka guurtida iyo ka wakiilada iyo ka xukuumadda iyo ka maxkamadaha maxkamaddu waa daciif awood ma leh waxa weeye waxay ahayd maxkamad ka madax bannaan soo xukuumadda Somaliland laakiin gacanta ku haysa qolii wakiiladu uu ahaa midkii qaban lahaa ee xukuumaddu joojin lahaa isna awood ma leh oo waa kan oo wuxuu noqday dheemaal golihii guurtigu waa la mid maadaama ay arrimahaasi jiraan waxa weeye arrintan subeeriyadu waa dabar joojinaya xukuumaddu inay waxyaalaha qaarkood ku dhacdo midka kale waxay ka sanqariyeen dhaqaalaha waa dhab waxa weeye xukuumaddu daryeel badan iyo oo daryeel badan oo dadka shacabka reer Somaliland ay u leedahay amba degaamada ay u leedahay amba horumar ay ka fikiraysaa u leedahay tusaalaan soo qaadan karnaa waxa kamid ah sanad walba dadku abaar bay u leedaan sanad walba gaari saar baa yimaada sanad walba xoolo badan baa ku burbura oo dhaqaalaha Somaliland ku dhisan yahay xoolaha nool buu ku dhisan yahay sanad quraana kamay fikirin in ay sanadka soo socda ay wax meel u dhigaan oo ay nidaam u sameeyaan oo qodaan haraqodaan oo meelo biyaha lagu xidho biyo xidheena sameeyaan oo ay baabuur gaari saarka dadka ka caawiya waayo xooluhu waxay inta badan u leedaan biyo la'aanta marka waxaad moodaa inaan xilba ka saarneen oo ay wax kale ku mashquulsayn lacagta lagu kharash gareeyo siyaasadda lacagta lagu kharash gareeyo dadka shacabka Somaliland kala qaybintiisa iyo laaluushka qofkii hadlaba la siinayo xogaaga lacagta loo tuurayo waxay taasi muujinaysaa lacagta hadii la gelin lahaa dalka oo dadka reer miyiga ah lagu sameyn lahaa oo la gelin lahaa oo abaaraha soo socda iyo dhibaatada soo socda laga sii gaashaaman lahaa oo biyo xidhana la sameyn lahaa oo dhul daaqa loo sameyn lahaa waxaan filayaa dhaqaalaha Soomaaliland wax badan baa iska tari lahaa wax badan baa horumar badan u sameyn lahaa marka waxa weeye ala ay xal waxay u baahan tahay in la xoojiyo subeeriyada in subeeriyada wixii lala qaban karo jiidali khaasatan lala qabto subeeriyada kalena in la xoojiyo taasaan filayaa in ma garanaysa ay danta Somaliland faa'iido ugu jirto haddii deganaansho la helo haddii dadka wada dhashay ee reer Somaliland ee jilibada kala gedisan ee qabaayil kala gedisan ay xiriirkoodu wanaagsanaado haddii isku soo dhawaadaan haddii baahida dadku ay yaraato haddii xasiloonidu ay wanaagsanaato oo nabadu ay xoogsato Somaliland waa udan waxaan filayaa waxaan ku soo xidhay hadalkayga subeeriyadu waa danta Somaliland waana wanaaga Somaliland guul Somaliland ururkan jiidaali ma aha urur qabyaalad iyo fidno abuuraya cidna laguma durayo cidna
dhibaato uma keenayo laakiin waa horumarka dhalinyarta reer Somaliland imika waxaanu ku soo dhaweynaynaa waa siyaasi madax bannaan Cabdiqaadir Maxamed ku soo dhawo bismillahir rahmaanir rahiim waruna horta salaad walba waqtigeeda la tukadaayay markaan halkan joogo markaan jidaali joogo waxaan ahay siyaasi madax bannaan waayo meeshani maaha ama ururkani maaha urur siyaasadeed waa urur ay sameysteen beel ka mid ah beelaha Somaliland inta badanna waxaan kula talinayaa inuu ka shaqeeyo horumarka beesha iyo ta qaranka oo si guud uga shaqeeyo dhalinyarada qaranka marka ugu horeysa waxaan salaamayaa marti sharafta halka isugu timi mudanayaal iyo marwooyin marti sharafta gobolada inooga timi dhammaan waan salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo raggii aasaasay ururkan beesha Subeer Awal ee la yiraahdo Jidaali run ahaantii madaxdii inaga dharjisay sidii qaabka ururku u shaqeeyo aad baan u fahanay waxaan leeyahay halka ka sii wada balse anigu talooyin guud baan siin lahaa Jidaali oo ay kamid yihiin inay awoodda saaraan dhismaha reerka Subeer Awal iyo inay ka shaqeeyaan arrimaha horumarka deegaanada ay beesha ku nooshahay sida caafimaadka waxbarashada cadaaladda iyo wixii qaban karaan focuskooda ugu weyn ka dhigin siyaasadda laakiin ay u badiyaan xagga arrimaha bulshada run ahaantii waanu ka wada dheregsanahay mushkiladda ka jirta maanta dalkii ay nimaduna inay uga waramayeen sida la soconaba Jidaali waxay ka dhalatay kacdoon shacab oo gudaha ka dhashay oo qaasatan beesha ay nimadaasi ka tirsan yihiin ay ka tirsanayaan xukuumadda maanta talada haysa ee madaxweyne Axmed Maxamed Silaayo run ahaantii culays badan baa beesha soo gaadhay ha ugu horeeyaan arrimo badan laakiin markii ay inamadu ku dhawaaqeen dhalinyaradu waxay ahayd waqtigii xisbiga kulmiye kacdoonku ka bilaabmay dhexdiisa marka mujaahidkii gudoomiyey xisbigii kulmiye mujaahid Muuse Biixi Cabdi loo diiday inuu musharax ka noqdo xisbiga kulmiye oo kulmiye dhexdiisa ay markaa mushkilad ka abuurantay taasi waxay keentay kacdoon fara badan waxaa jirtay dhibaatooyin kale oo beeshu ay tirsanayeen waxaa jirtay dhibaatooyin xagga xataa rag mulkiilayaalka saxaafadda madaxa bannaan tusaale ahaan iyadoo aan ognahay saxaafadda madaxa bannaan ee qaranka Somaliland inta caddi weyn oo aad u ballaadhan lagu hayo intii uu maanta xukuumaddan ay talada haysay haddana waxaan si gaar ah u xusi karaa wargeysyada Haatuf iyo Hubaal oo ilaa iminka xidhan waxa ay ku xidhan yihiin ay tahay xaq darro waxa ay ku xidhan yihiin ay tahay maxaad fikirkiina u cabiraysaa waxaad dhinaca kale arkaysaa inama yaryar oo qaab qabyaaladeed looga kaxeeyay UK-dan aynu joogno oo wargeysyo loo furay oo website loo furay oo madaxtooyadu ay biilka ka bixiso oo la yiri dawladana ku amaana mucaaradkana ku caaya arintaasi waxay keenaysaa waa waxyaabahan keenaya markaa inay dhalinyaradii reer isku abaabulaan markay arkaan qaarna in la xidhay oo reer ahaan loo cadaadinayo qaarna in la soo dhaweynayo taasi maxay keenaysaa markaa inay dhalinyaradii xanuun ka abuurto qabiiladii markaa inay qabiil kasta urur dhalinyaro sameysto oo ay halkaa mushkilad ka dhalato run ahaantii dalkii iminka waxa weeye run ahaantii dalkay nimcu ku jira maanta markaad Afrika eegto dal aad dhexdiisa wax ka dhaliili karto dal aad dabadiisa wax ka dhaliili karto dal aad madaxweynihiisa si toos ah wax uga sheegi karto inagu baa jira laakiin haddana nimcadaasi waxaynu u baahannahay wax u dhaliilaynaa waxa weeye in wax la toosiyo oo wax la saxo oo Somaliland oo qurux badan oo sharaf laayno aragno
taasaa muhiima ayaamahan sidaad la socotaanba waxaa jirtay in doorashadii wax yar ka hadhay mana cadda ilaa iminka doorasho dhacaysa madaxweynuhu iyo xukuumaddu waxay caddeeyeen doorashadu inuu waqtigeeda dhacayso laakiin waxaad moodaa weli in caqabado badan hor taagan yihiin kow mushkiladda ugu weynayna haysataa innaga waxaa weeye sharcigii baan cidi ku dhaqmayn sharcigii waynu qorannay buuggii yaraaye ilaahay u naxariistay madaxweynihii hore maxamed xaaji ibraahim inoo qoray meel baa la iska dhigay waxa maanta inoo sharci ah oo dalkaa dhan ay ku kala socdaa waa doonista madaxweynaha iyo intaa ku xeeran taasaa sharci ah wuxuu isagu madaxweynehenu doonayno waa sharci wuxuu madaxweynehenu doonayno waa sharci darro mushkiladayna haysataa ee ugu weyn waa taa weeye sharcigii cidi ku dhaqmi mayso mar hadduunu sharcigu madaxtooyada ka farxinayn sharciba mahaba waana problem weeye waxaa weeye maalin waxaan arkayay diiwaangelinta madaniga diiwaangelinta madanigii waxaa weeye waa mid wanaagsan muwaadinku inuu waxaa weeye laga garto ajaanibka waa arrin aanu soo dhaweynayno qurba joog ahaan in dalka iyagu uu yeesho diiwaangelin laakiin mushkiladda waxaa weeye sharciga ama dastuurka inoo qoran wuxuu sheegayaa xeer kastoo dowladdu soo coriso ama baarlamaanku soo coriyo xeerku wuxuu xeer noqdaa marka baarlamaanku ansixiyo baarlamaanku markuu ka gudubto guurtida ansixisa guurtida markii ansixisana madaxweynaha loo geeyaa madaxweynaha saxeexa haddana waxaa la geeyaa warbaahintaa loo geeyo markaas xeerkaasi sifihii sharcigaa wuu soo maray iminka diiwaangelin baa socota madaniya diiwaangelintii baarlamaankii way soo dhaaftay guurtidii bay weli taagan tahay sharciyan markaa diiwaangelintaasi waa diiwaangelin sharci daraa sababtoo ah sifihii sharciga ma marin madaxweynihii qaranka ayaan iyagoo weliba baarlamaankii ka doodin ayuu isdiiwaan geliyey markaasaa guddoomiye ku-xigeenkii guurtida ayaa isnad isdiiwaan geliyey nasiib wanaag inama warbaahinta oo madax bannaan baa halkii guddoomiye ku-xigeenkii guurtidu ay iska diiwaan gelinayay ayay ku yidhaahdeen oo diiwaangelintaada wadaa miyaad ansixiseen maya maanu ansixin oo waanu hakinay oo siday sharci ku noqotay markaasuu yidhi oo miyaad i weydiinaysa aniga maxaad i weydiinaysa oo tii socotay markaa wuxuu ka wadaa anigoo guddoomiye ku-xigeenna guurtiya maxaad i weydiinaysaan kii madaxweynaha oo sharci darre ku gelaye waa sidaas siduu hadalka u dhigaya markaa wuxuu ku leeyahay oo maanaad i weydiinaysaa waa tii socotay markaa sharci mushkiladda ugu xumeyn haysata waxaa weeye sharcigii iyo qawaaniintii aynu qorannay ayaan cidi ku dhaqmayn dadkii shacabka ahaayee dee ka diiri lahaa waxaana waa tan dee reere loo kala qaybiyey ee qabiil ina aafeeyey ee kooxba meel ku xidhay run ahaantii annagu arrintaa aad baan uga xunnahay waxaanu mar walbana jecel lahay waxaa weeye hadday madaxweyne noqoto iyo hadday ka ugu hooseeya noqotoba in sharciga loo hoggaansamo waayo sharcigu waa wax ina kala hagaya wey maanta markaad eegto dadka aynu la nool nahay ee gaalada dee inama ogola inaynu ku dhex cibaadaysano inama ogola inaynu ku dhex joogno inama ogola waxa inaga haya waa sharciga ay qorteen iyo ilaahay iyo sharciga ay qorteen baa inaga haya marka waxa weeye sharciga weyn waxa weeye la adkeeyaa weeye ma aha in doonista ninka siyaasiga ay socoto uun waxaan fariin u dirayaa dowladda waxaa weeye doorashadii aad ballan qaadeen waa inaad waqtigeeda ku qabataan waqtigeeda waa inaad ku qabataan ma aqbalayno maalin in lagu daro sababta waxaa weeye madaxweyne daahir yaale ayaa 2 sano ku darsaday sharci darre ahayd madaxweyne siilaanya kule maanta 2 igu dara ka dambeeya wuxuu oranayaa 2 igu dara ka sii dambeeya 2 oo markaa maxaynu markaa ma 2 baynu ku jireynaa markaa goormaynu helaynaa markaa hogaamiye daacada waxaynu u baahannahay dalkeennu nimcu ka jiraaye waxa mushkiladayna haysataa waxaa weeye haddaynu reer Somaliland nahay hogaamiyeyaashii baa inkaaray nagaga dhacday xagga siyaasadda ahayd ninka siyaasiga ah xataa markuu mucaaradka yahay wuu barooranayaa wax walba wuu arkaa imika haddaad aragta siilaaya imika YouTube haddaad gasho soo saarta markuu mucaaradka ahaa imikana aad eegto dowladdiisa yabba ilaahay ku keenaya marka waxaa weeye in lagu dhaqmo sharciga iyo kala dambeynta ayaa wanaagsan taasina markaa waxay kiciysaa markaa inuu dalku wanaagsanaado ururkan wax badan odhan maayo waayo meeshani madal siyaasi ah ma aha waxaan leeyahay dhalinyarada
كشقية وناقة سومالان دانتا سويروال waxay ku jirtaa danta qaranka Soomaaliland markuu wanaagsanaado oo sharaf yeesho ayaynu inaguna sharaf yeelanayna aynu ka shaqeeyno danta qaranka muhiimadu aynu yoolkeenu ha noqdo muhiimadeena iyo yoolkeenu yuuna noqonin isbedel aynu leenahay hebel ha bedelo macallin ma baahanin isbedel madaxweyne bedelaya uma baahanin xisbi bedelaya isbedelka aynu maanta u baahannahay waxa weeye in systemkan iyo problemkan dawladda ee meesha ka jira ee dawlad ka dhaxashay ee cadaalad darrada leh ee caafimaad xumada leh war waxaan inaga qabta hogaamiye daacad aynu u baahannahay ilaahay hogaamiye daacad hayna siiyo inaguna aynu qarannimada ilaalino dhalinyarada jiidaalina waxaan kula dardaarmayaa ha ka shaqeeyaan oo arrimaha bulshada ha ka shaqeeyaan danta guud ee qarankana ha kala shaqeeyaan dhalinyarada guud ee reer Soomaaliland saasina horumar ku gaareynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد القادر محمد عبد القادر وحنا حسوسين يا dhalinyarta reer Soomaaliland inay noqoto mid siyaasadda ka madax bannaan laakiin wax u qabata dalka iyo dadkaba imika waxaan ku soo dhaweynayaa waa oday inooga yimid waa oday Sheffield ka yimid oo kamid ah odayaasha haldoorka reer Sheffield waa ahna odayaasha Subeer Awal magaalada Sheffield waa Maxamed Yuusuf Hersi ku soo dhaw Maxamed altida haweenka odayaasha dhalinyarada iyo bahda saxaafadaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa weeyaan jiidale waxa ku bilaabantay cadaadis iyo cabudhin iyo cagajugleyn iyo dadkooda intii aqoonta lahayd amba haldoorka ahayd oo amba lagu tunto amba si aan waafaqsanayn bini aadminimada shaqada looga eriyo isagoo aan waxba loo sababayn waxa kale ay ku saabsan tahay cadaadis ninka madaxweynaha ah oo beeshu ay u heelisay si uu xukunka u yimaado inuu bilaabay inuu ku tunto beeshan halkan Subeer way ka dhalatay inuu bilaabay inuu ninku ka noolaa daaqada ka saaro uu ka bilaabay taani ninkii ciidamada haystay u sahlay isbedelku inuu dhaco iska hor taageerayaal inuu ciidamada isticmaalo waxaana hawada looga saaray kuwa kale meesha la yimi waxa la go'aansaday inaan laga tegin dabeedna nin alla ninkii caqalad ku noqonaya wadada aad marayso waa inaad dhagxaanta ka qaato nin alla ninkii caqalad ku noqonaya wuxuu yidhi taani iyo riyaalo abtigi ahaaba cunaha u fadhiisay dee adna ku sii danay dabad horta isaga daaqadu ka saaray dabeedna wuu isku xigsiisay tusbax wixii qoyskaa qof nool ka soo jeeday ka soo qaad metal xukuumaddu waddo kastoo la samaynayo 100 kun bay siisaa wadada cad oo wadooyinka la sameeyay ugu horeysayna iska daa waxay siiso ninka qoyska u dhashay ee caawi islaaye maalqabeena cashuur baa lagu soo dalaa aanu qabin waxay kula jirtaa jahaad waxa weeyaan 100 ceel baa la qoday dhulka beeshan degto ceel laga qodin anu waan tagay gaari baan ka haystay goon baan u dhaadhacay tuulayaashaas aan wada tagay ceel sheekh baan tagay dadka waxaan weydiiyay meesha caafimaad ugu dhow caafimaad waxa ugu dhow Berbera Boorame iyo Hargeysa dadka halka jooga lagama codeeyo booliis ma laha iskuul ma laha caafimaad ma laha idimo oga Soomaaliland kama tirsana waxa weeyaan doorashaad ka hadlaysaan xukuumadda doorasho inay qabato kuma talagelin anu waxa leeyahay doorasho iska dayo Soomaaliland sanadka inta ka hadlay xukuumadda haysta kuma hoos noolaan karto way baabaaysa ma gaadayso idinku 7 bilood iyo inta wax dhiba ka hadlaysaan waxa weeyaan Soomaaliland maqaamka taagantahay waxa weeyaan waa maamul goboleed Soomaaliya kamida oo Puntland ka hooseeya waliba madaxweyne Siraayo kulku Chatham House yimi 2012 ayuu Soomaaliland ka noqday waxaan dadka u sheegay waxba kama jiraan waxa ku cadaynaysan nimankii xildhibaanada waddankan Ingiriiska Soomaaliland u doodayay oo wada amseen iyagoo ku dhow inay mooshin geeyaan baarlamaanka
ayuu ninkaasi yimi waa la bedelay waxaan laga sheekeeyay kolkay Turkiga Istanbul tagaan ay soo noqdaan kuwa Muqdisho ay dhahaan waxaan ku heshinay kuwa Soomaaliland ay dhahaan ma waa beentood labada kuwa Soomaaliland baa been sheegaya waxa Muqdisho sheegaysa lagu soo heshiiyay waa ma waxba kama jiraan waxa kuwana beenaalayaal kuwaas runta sheegaya مثل كلكو حسن الشيخ لي عاد فدا مدحوين السيران يا كويلي هالكن دتكو انت عاد فدو كتبيسان ما ولينيه افكا ابقال كما كما جرت عاد فدو هذا قال لسان waxa weeyaan waxaan ka hadlaysaan jiidali anagu odayaashii hadaan nahay dhalinyarta jiidali waxaan leeyahay oday hasugina oday dhaqameedkiini wuxuu u batay oday dhooni hadda dhalindhooni baa soo baxday xaga kale ka soo baxday waxa weeyaan maalqabeennadiinu مع حوله وذا اللي ده كلام قبيلون كلام مع القبيلين كده ضد كده عاويان كوينا يجي حوله ده ولا اللي أدو سيران مليون كان هذا ويكيني يعني لكن هذا أدو كتير كون دولار كان دوغ عد هلقو قبته وكاسي تيسني كلك وحنون عينو قبنا ويانا ده كلامه قبين كاسي إدنا وجوتنا إذن كان أنت نال كان شوكتا أنا جو وحن تاجر سنة هاي إني ما كاسي لا تاجره دقالة إنك هينا هادو سيراي إنه يمدى يحرس يوشيب كدلو لسانه هو صوت وقرتان لكن إما كحس كده بدي جلسان مقالنا إمسا كنا ولا إمسا جوع عوالك وحويا دقالي إنه جبهان يهين تاجري إنه جبهان يهين وإنه وإنه عاون ويان إن أنا جو ديران ما لكن سدح قويس بان تلو تشيدينيا وقلبت كسومالي لاندجا وهو يوم قويس كينن يلا بدو قويس قلبت كنجا حاجة waxaan leeyahay saddexdan qabiil isku degaan baad tihiin Somaliland kiilka shanaad isku degaan baad tihiin Djibouti baa wada leedihiin oo saddexda qoys baa hayaan wixii u dhintay loo dilay anigu ilaa 62 aqli baan lahayo Djibouti baan ku noolaa waxa la dilay waxa dhintay waxa taageer la durmanayay waxa loo dilay xagaas saddexda qabiil weeyaan haddaba idinkoo sidaas oo isku degaana saddexda dalba inuu nin عرف كعدد كسبحة كيمي بلا إذن دحدقو وكلنا إسكوكين دلو كلنا إذن كذا دلو كلنا إذن وده دلو سداي ما كبر عضي إن وقتها كتشني سين بلغاري وان كبحي السلام عليكم ورحمة الله